My name is Frank Dako and I live in Takoradi. magacaygu waa Frank Dako waxaana ku noolahay Takoradi waxaan sameeyay baaskiil biyaha ku dul soconaya oo xal u ah caruurta dabaasha ka hor intaysan iskuulka aadin ee ku nool tuulooyinka fogfog ee dalkeena sanado ka hor waxaan fiirsaday barnaamij TV oo muujinaya caruur dabaal ku tallaabaya si ay iskuul u aadaan markii taas aan arkay waan ka murugooday arrintaas waxaana nafteeda u sheegay maxaan caruurtan ku caawin karaa waxaan bilaabay fikir ugu dambaynna waxaan helay fikraddan ah samaynta baaskiil biyaha lagu dulwadi karo baaskiilka wuxuu ka samaysan yahay alwaax weyn aluminiyam iyo alwaaxyo yaryar alwaaxa weyn waxa uu ka dhigayaa mid biyaha dul sabeeya birta wareeganaysa way socodsiinaysaa siligana sidaad og tahay waa midka lagu kaxeeyo silsiladda waxay wareejinaysaa biraha si ay u socodsiiso biyaha marka ay dhaqaaqaan baaskiilka horay buu u soconayaa waxaan doonayaa inaan xalliyo caruurta dabaasha marka ay iskuulka aadayaan ee tuulooyinkeena ku nool waxaan ku bixiyey 400 oo siidhis lacagta Gaana oo u dhiganta $100 fulinta mashruucan mustaqbalka waxaan filayaa inaan ku dari karo waxyaabo fududeeya si uu uga fiicnaado midka aan hadda sameeyey dhaqaale badan oo aan ku sameeyo ma hayo mustaqbalka haddii aan helo meel wanaagsan waxaan samayn karaa wax ka wanaagsan midka hadda aan sameeyey waxaan dareemayaa sharaf sababtoo ah Afrika badankeena ma fahansanin tiknoolajiyadda waxaana awooda inaan midkan sameeyo mustaqbalka marka aan helo deegaan ii fududeeya waxaan shaqaalaysiin karaa dad badan oo mashruucan ka shaqeeya taasina waxay xallinaysaa shaqo la'aanta dalkeena